السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا أن جعلها ميل والبعض عالمك كجوكتان هدي أن نقول عصوبتا هاي فضلا سبسكرايب نوردسي أن أقارنو هلكي أن ربني هدي أهورن نقول حريدنا آد أيان كاغا مهد علينا halkan waxaan mar waliba kusoo gudbiyaa barnaamijyo xiiso badan kaas oo dadka nagu xiran aad u raali geliyo maantay waxaan isla fiiri doonaa wada hadaladii u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan Itoobiya taasoo garwadeen ka ahayd Turkigu sidaan wada ogsoonahay wada hadal ayaa shalay ka bilowday wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara kaasoo lagu dhaxdhaxaadinayo dowladda Soomaaliya ee tan Itoobiya shalay wada hadaladii waxay ku soo dhamaadeen fashil sidoo kale maantay waxaa wararku sheegayaan in wada hadaladii la isku mari waayay dowladda Itoobiya ayaa ka biyadiiday in ay ka laabato heshiiskii ay la gashay maamulka Somaliland raaligelin ay ka bixiso dowladda Itoobiya waxay leedahay haddii aan raaligelin ka bixiyo amba heshiiskaas kansalo maxaa bedel ah aan helayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay u sheegtay inay waxba helaynin markaas kadib wixii wada hadal ah oo bilaaban karo sida wararku sheegayaan weli labada wafdi isma hor fadhiisan waa loo kala dab qaadayaa midba mid kale ayaa warka looga soo gudbinayaa waxayna ku kala sugan yihiin laba meel waxaana warka u kala qaadayo Turkida sidaa darteed Itoobiya waxay wadaa ku qabso ku qadmeyside mar dhow waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi wuxuuna sheegay in dowladda Soomaaliya ayna marnaba ka tanaasuli doonin qorshaheedii amba ajandaheedii ahay inayna aqbalaynin in ku qadmeysida ay ka aqbasho dowladda Itoobiya ayaa sida caalamkuba amba dadka wax falanqeeyo ay sheegayaan in warkeedu uu yahay ku qadmeysida Itoobiya maanta ma jirto sabab loola gorgortamo dhulkan waa dhul Soomaaliyeed Soomaali ayaa iskale Soomaali ayaa leh dhulkan xeebahan badahan sabab maanta ani ahaan maba qaba loola fadhiisto because waxayna lahayn haddii maanta gurigaaga aan kugu qabsado oo dhaho gurigaaga ayaan ka gorgortamaynaa taas qof kasta oo Soomaali ayaa fahmi karto